koonfur afrika ayaa wajahaysa banaanbaxyo rabshado wata kadib xarigii madaxweynihii hore ee koonfur afrika Jacob Zuma. gobolka KwaZulu Natal ayaa waxaa gaabis ku yimid isku socodka gawaarida xamuulka qaada. boqolaal baabuurta xamuulka qaada ayaa dab la qabadsiiyay. sidoo kale rabshadaha waxa ay ku baaheen gobolka Mpumalanga iyo weliba gobolka Gauteng. magaalada ganacsiga waa habeennimadii xalay ilaa iyo maanta koonfur afrika ee Johannesburg ayaa waxaa gilgilay dibadbaxayaal caraysan. bilayska koonfur afrika ayaa meelaha qaar xiray sida wadooyinka muhiimka ee soo gala magaalada Johannesburg sida madaarka caalamiga ah ee Tambo International Airport. rabshadaha lagu taageerayay Zuma madaxweynihii hore ee South Africa ayaa qarxay magaalada Johannesburg waxayna u muuqataa in xaaladda faraha ay ka sii baxayso. dukaamo ayaa la bilaqaystay habeennimadii xalay ilaa iyo maanta ficilada rabshadaha goosgooska ayaa kasii dhex soconaya gudaha magaalada Johannesburg waxayna ku baahayaan deegaano hor leh. war qoraal ay bilayska koonfur afrika soo saareen ayay ku sheegeen inay xireen 62 qof oo lagu soo eedeeyay inay hor boodayeen barnaamijyada rabshadaha wata.